بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات وفرق اللوات وحلقة اللوات محاضرة أني أنا عنوانك وقردقني كشف القناع عن حقيقة جماعة الصادعون بالحق waxaynu soo barannay darsigeenii hore ee xalay ku soo qaadanay oo fadhigii xalay taariikhda fikirkani uu leeyahay iyo xagee uu ka soo bilowday iyo maraaxiishuu soo maray iyo Soomaaliya sidoo ku soo galay ama Soomaalida ku soo gaadhay iyo qoladani meeshay kaga abtirsadaan fikirkaas aan taariikhdiisa soo sheegay waxaa u dambeeyay oo aynu ka hadlaynay bayaanka ay akhriyeen oo laba bayaan oo kala dambeeyay ah waxyaalaha uu xambaarsan yahay ayaynu bilownay waxaan tilmaanay waxa ugu horeeya la mulaaxadayn karo inay ka mid tahay inuu iska hor imaanayo oo isaga oo kooban waraaqa kooban ah haddana afkaar iska hor imaanaysa inay ku jirto waana wax kasta oo aan xaq ahayn ayaa dabeecadiisu ay tahay inuu iska hor yimaado oo isburiyo haddaynu marka qodob baynu sheegnay qodobka labaad ku darno meelaha isburinaysa ee bayaanka ku yimid waxaa ka mid ah markay ka hadlayeen jamaacadka islaamiga ah iyo mowqifka ay ka qabaan ayaa waxa ku yimid hadal iska hor imaanaya hadalkaasi sidan u yaala waxay leeyihiin ama bayaanku uu leeyahay inna manhajana alladhi bayyanahu yakhtalifu ma'a manahij aljama'at alislamiyyah almawjudah fi as-sahah سواء تلك التي تتخذ العنف سبيلا للوصول إلى الحكم لإقامة الإسلام أو تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك المنشغلة بالقضايا الجزئية والمخالفات الفرعية في حياة الناس غافلين عن غياب أصل التوحيد عن حياتهم meesha uu fiirsada wuxuu leeyahay manhajkanaga wuxuu ka duwan yahay jamaacadka kale islaamiga ah ee saaxada jooga ama ha noqoto midda dagaalka iyo gacanka hadalka xukunka si ay u gaadho u marta si islaamka u istaajiso ama midda xukunka si ay u gaadho u marta in ay golayaasha baarlamaanka iyo anshitada siyaasiga ijtimaaciga inay baabkaas halka jidka wax ku raadiso ama ha noqoto jamaacadka ku mashquulsan arrimo juz'i ah waxyaalo iska yaryar iyo mukhaalafaad farci ah aan sii waaweynayn oo nolosha dadka ka mid ah jamaacadkii marka hadlay wuxuu yiri ayaga oo moog in tawxiidka asalkiisii uu ka maqan yahay noloshooda يهين وجماعاتك إسلامية أصل كي توحيدك نلشوا ضوا كما قيم طيب قضبك هلك قبت مرة كذب واحد هان هذا الكوسي وذوحي وحير كذب وهذه الجماعات التي تعلن أنها قامت لإعلاء كلمة الله دون أن تلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لها علينا حق الولاء العام للمسلمين جماعات كاسي وحي نقوليهن ولها جود مسلمين تليه وإن كنا نعتقد خطأ مناهجها وعدم إمكانية تحقيق الهدف الذي تعلنه من خلال هذه المناهج وندعو لها بالتوفيق والرشاد
ونألم لما يؤلمها ولما تعانيه من اضطهاد وحرب من الجاهلية. عليه جماعات كاس ولا ينقولي ولا هتجود المسلمين تنقولي. طيب إن كسرنا اعتقاد سنة هي شيد كأي مرين منهج كي الطريق إنه كخلدين شيد كأي مرين إننا نكو حقيقين كرين وحي السعودان واه إن الدين إلهي يحكم كشرع السعودية وحيلي ورد عيننا توفيق الرشاد إنه لا يهنوني والتوفيق ضوافتين ورد عيننا وح حنوتشنا يوان لحنو صنينا dhibaatada iyo dagaalka ay jaahiliyadu ku hayso iyadana waa ka xanuunsanaynaa jamaacadkaasi marka waxay nagu leeyihiin walaha muslimiintu nagu leeyihiin muslimiinta walihii ay isku lahaayeen bay nagu leeyihiin طيب maxaad soo marteen marka maxaad soo marnay in tawxiidka asalkiisii noloshooda ka maqan yahay haddii xarakaadkan iyo jamaacaadkan tawxiidka asalkiisii noloshooda ka maqan yahay seebay muslimiin ku noqdeen walale seebay walihii muslimiinta ku yeesheen tawxiidka asalkiisii waa ka maqan yahay waxay faa'iideynaysaa bimacnaa waa gaalo dhanka kalena waxay leeyihiin walihii muslimiinta inagu leeyihiin si kale haddaan u dhahno marna waxay leeyihiin waa gaalo marna waxay leeyihiin waa muslimiin istisar marka waa hadal iska hor imaanaya mar kale waxaa iska hor imaanaya jamaacadkaasi ay leeyihiin waliha muslimiinta inagu leeyihiin dadka muslimiinta wala khaasa isku leeyihiin soo ma oo iimaanku keenaya ruuxa islaamnimada iimaan u ogoshahay wala u leeyahay baa jira walihii nooca ahaa waxay u sugeen oo jamaacadkay u sugeen waxaa ka mid ah تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية وحكم إذا أروردا سي حكم كاي أوقفتان أمرة برلمان نضا أمرة سيدك أرورك إخوان المسلمين كي يوحي لمن أروردا برلمان نضا قلا ودولدها برلمان كودي مجالس تشريع قلا وهلكا سيدا حكم ككرادية kuwaasi walay nagu leeyahay طيب su'aasha iimaanaysa waxay tahay wixii ay madaxda iyo dawladaha ku gaalaysiiyeen muxuu yahay sharciga ilaahay waxaan ahayn bay dajiyeen sharciga ilaahay waxaan ilaahay bay xukumeen jamaacadkii arrinka kula dhex jirayna waa muslimiin shucuubta muslimka maxaa lagu gaalaysiiyey bimacnaa wax weeye sharciga ilaahay ma xukumayaan kuwii baarlamaanaadka dad ku darsaday ee sida xukunka ku raadinayeen waxay leeyihiin waa muslimiin waana walaalahana walay nagu leeyihiin waa muslimiin wala nagu leh su'aashu waxay tahay marka wixii aad nidaamka ku gaalaysiiseen mujtamacaadkana ku gaalaysiiseen jamaacada ku dhex jirtay waa muslimadoo walay leedahay intii kalena isla isagan ku gaalaysiin waa tanaaqud تناقض waxaan la garanaynin ma nooc oo taktiika mise isbedel fikirkooda ku dhacay inuu yahay leena asalka fikirka yani ururadan oo yani ghulat fi takfirka ah ee asalahaan ay ka soo jeedaan aqeedadooda rasmiga wax weeyaan ururada islaamiga ah ee dacwada wada ee diinta faafinaya meel alla meeshay dooneen ha galeen usluubkay doonaan ha isticmaaleen manhajkay doonaan ha wateen mar haddayna ayaga ka tirsanayn amiirkoodana beeca la gelin inay gaala yihiin baa asalku saas u ahaa iyaga agtooda manhajka asalkiyo caqiidadooda asalka saasay ahayd hadalkan marka hadda meesha ku qoran ee mutanaaqidka ah ma wuxuu ku tusayaa inay ka noqdeen oo jamaacadka islaamiga xukun khaasa siiyeen mise wuxuu ku tusayaa waa nooc taktiig ah waxoogaa dadku yeena didin baa leeyahay dabinka la isu dhigaya labada kay tahay waa su'aal meesha ku jirta طيب taana waa iska horimaadka labaad oo hadalkiiyo ku jira bayaanka daday marna waa gaala leeyihiin marna waa muslimiin oo walay leeyihiin ay tilmaamayaan
dad shaygii ay ku dhaceen qolo lagu gaalaysiiyey qoladii kale ku dhacday aan la gaalaysiinaynin waay tayib waxaan garanaynin waxa meesha ku jiro in la fahmo u baahan masaa'ishan oo al-udhru bil jahli al-udhru bit ta'awul al-udhru bil khata' ma qaban udhru bil ikrah oo ikraha waliba nooc khaas ah ay qaban tayib tanaaqudka saddexaadi waxa weeye oo waxaan oo dhan ka imaanayo nolosha xubnaha ururka ee ka muuqata iska cad xataa amiirkooda kaba soo qaad xaggay ku nool yihiin ma xiddi kale ku nool yihiin ya mise dhul kaloo keenan aan ahayn bay ku nool yihiin dhul keenan ay ku nool yihiin soo maaha tayib andimadan ay leeyihiin iyo dowladahan ay gaalaysiiyeen biitlaaq biduun istithnaa biduun tafsiil ay gaalnimada ku xukumeen andimadii bay ku hoos nool yihiin soo ma si meel kale ku nool yihiin andimadii bay ku hoos nool yihiin qawaaniintii wadciga ahayd ay ummadda dhan diinta kaga saareen sababteeda ayaa ku dul socota miaal maalan haddaan siiyo rag waxaa ku jira injineeriin ah waxaa ku jira rag asaatiidoo jaamacaad ka soo baxay jaamacaadna dhiga jaamacaadka iyo ay ka soo baxeen iyo kuway dhigayaanba sida qaalibka waxay u khuduucayaan andimo nidaamyo aadamuhu dejiyey bay u khuduucayaan tuu dhigayo iyo miduu ka soo baxay tayib talabaad weeye waxaa ka daran waa ganacsato ganacsiga caalamiga ah buu qayb ka yahay andimadaasi caalamiga ah buuna hoosgeli markaad ruqso soo qaadanayso ood ganacsi furanayso nidaamkaad ku soo qaadanaysa waa nidaam wadci ah dowladda ku siinaysaa waa dowladda aad lahayd waa gaalo soo ma nidaamka ganacsigaaga xukumayaay ma aha nidaamka islaamiga meeshaas hoos joogto nidaamka qaahirka iyo maxaakimtiisa iyo andimada dhaqaalaha iyo waa andimo kale tayib midda xigtee kaba daran waxa weeye oo kaba dhowba raggani baasaboorray wataan soo ma aqoonsi shakhsigana waa wataan baasaboorrada ay wataan iyo aqoonsiga shakhsiga marka la qaadanayana nidaamka lagu qaadanayo lagu bixinayo waa andimadii wadciga ahaa waa waliba salka wuxuu ku hayaa markii la sii raadraaco inaad daacad u tahay dowladdaas inaad dastuurkeeda daacad u tahay inaad nidaamkeeda daacad u tahay baa lagu qaataa adigu ama akhri ama ha akhriye baasaboorkii baad saa ku qaadatay aqoonsigii baad saa ku qaadatay waad xambaarsan tahay nidaamkii aad dadka ku gaalaysiisay baad lugta kula jirtaa bal iskaba dhaafe markaad doonayso inaad furato maalan mawaaqiicdan tawaasulka facebook baad furanaysaa youtube baad furanaysaa markaad doonayso inaad furato system xukamaa jira system iyo nidaam baa xukuma oo lagu furtaa nidaamka iyo systemka xukumee lagu furtana waa nidaamkii wadciga ahaa noloshiisoo dhan ninka marka dadka gaalaysiinaya iyo sheekha amiirka xarakada iyo xubnuhuba noloshoodoo dhan waxay ku dhex jiraan andimadii ay dadka ku gaalaysiiyeen adeer adiga hadday kugu dul socoto bal qaar ka mida shaki ma laha ganacsigiisa iyo hoolihiisa iyo caruurtiisa iyo naftiisa iyo markay khatar galaan maxkamaduhu tegi oo isku difaaci tacaakum buu samayn ilaa hayri sharci illah su-aasha waxay isweydiin tahay marka maxaa iyagana gaalnimada u diiday shucuubta muslimkana gaalaysiiyey wixii dadku ku jireen unbaad ku jirtaane adeer maxaad idinkuna gaalnimada isugu diideen shucuubtana u gaalaysiiseen hadday jawaabtu tahay waanu qasbannahay daruuraa jirta ikraah baa jira oo shucuubta muslimka iyagu ma jirta miyo maxaa u diiday hadday tahay sida hadalka ku cad ee ku imaan doona bayaanka ina ashucuuba raadiya shucuubtu raalli bay ku noqotay andimadan wadciga ah hadday jawaabtu sidaa tahayna waxa weeyaan jawaabteedu waxa weeyaan waa u tegi doonaaye shucuubta inay raalli ku tahay andimadan wadciga ee lagu xukumayo
riduhu waa camal qalbi ee seed ku ogaateen ma qalbigoodaad jeexdeen intaasoo ummad ah intaad quluubtooda ogaateen inay waxaan raalli ku tahay miyaad soo ogaateen halla shaqaqtum sadraha sidaas daraaddeed la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waa aniga markay haysato iyo xertayda axkaamtaasi qiil baan raadsan oo gaaloobi maayo shucuubta muslim iyo ummadda inteeda kale markay haysatana waa gaalo murtadiin oo diintay ka baxeen tanaaqud waadixa waa tanaaqudka noocaas ee noloshooda ka muuqda ayaa manhajkoodana waadixoo ka muuqda tanaaqudaadkaasi inta haddaan kaga soo gudbo bayaanka sida ay iclaamiyeen xarakada waxaan aasaasnay bay dhaheen 40 sano ka hor waqti hadda ku aadan 1973 marka taariikhda la fiiriyo 40 sano ma waa 44 sano waa laakiin taariikhdaasi wax badan nagalama sii jireen waxaan baraarujin rabay taariikhdaasi 1973 waa xilliga ninkii جماعة التكفير والهجرة أما جماعة المسلمين يقول لبح مصطفى شكري سماي حال السوشي سنة كاس وسنة كو إعلاميي أرك حبنه سنة أمري إن أي مقالوين كبحان أو أي انتي هانتيضو وضع إيبيان سهين قاتان إني بورها قلان سنة كاسي كون سقالبه وتضباتني السدح دي حلقة الدور قلقة باللابين به تاريخ دا مركا وحي حديدين سؤال واحد ملاها مقالة دي الدور كقلبي يكون شريان وحلقة قاسي تاريخ دي كسو باللابين ما حلقة قاسي انفصالين وسيقوني ايقو اي وحوصة ميستين وسؤال اسويدين له حيالها ملاحظات كالي وحا كم إذا بيانك كم مقضاه بيانكو وحو آد uga fog yahay xaqiiqada iyo waaqica ahkaam waxa ka muuqata aad moodo ilma yaro dugsiyada hoose ku jira inuu soo saaray ilma yaro dugsiga hoose dhigta oo xamaasaysan ahkaam ka soo fushay qaar u muuqda ayaa meesha ku qoran walla wada yaabaysan markaad aragtaan مثلا waxa kamid hadan miisaal soo qaato wuxuu leeyahay ولم يبق من الإسلام اليوم في واقع الحياة إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وأصبح انتماء الأمة اليوم إلى الإسلام انتماء تاريخيا صوريا لا يحمل شيئا من الحقيقة والواقع وحليه هي إسلامك ما أنت نولش ضدك مركا لفيريو إسلامك أردن مقع باك سوهري quraankiina uu kaliya waxa ka soo haray far meel ku qoran tayib abtirka ay isdiin muslimiintu ay ummadu maanta ummadu abtirka ay ku abtirsanayso islaamnimadana kaliya waxa ku soo haray uun dhacdo taariikhiya oo lagu abtirsanayo oo aan xaqiiqadiya waaqica waxba ka xambaarsanayn mujarrad abtir aan xaqiiqo ahayn islaam baana hay bas aan waxba dheeray quraankiina far waraaq ku qoran kaliya ka soo haray wax kale oo lagu sameeyo ma jiro waa halkaas uu qoray halkaas uu saaran yahay waraaq iyo far isku qoran oo meel taalo waa inta waxaan ahayn ma jiro islaamkiina magaca iyo abtirkaas ka soo haray warkaas ma xaqiiqa هي الميرو ابتدائي حتى كما الله وركاس لأن ستوصل وجوهر إيمانا يا حقيقة دول كتال إسلام كي واحد بدن بيال صوما تذكر شهادتين كي بقريان وإسلام كي صلاة دي بتكن يا المساجد دي بعمران وإسلام كي سكدي بيبحنا يا وإسلام كي ويصوم يا بشهر رمضان وإسلام كي ويحجنا يا وعمريسنا وإسلام كي صدقات كي بيلا بحنا وإسلام كي ويسكو غورسنayaan oo isku furayaan oo ku maca isku dhaxlayaan waa islaamki muamalaadkeeda in badan kamid oo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqoodii waa islaamki Soomaaliga dumarkoodii bay xijaaban waa islaamki guriyahooda ku dhaqmayo waa islaamki waxna dhan waa waaqici alla waa islaamki magac baa ka soo hadhay wuxuu yahay ya
war in baa maqan dheh in baa maqan islaamkii halla baadi goobo oo war la fahmi karo laakiin islaamkii magac kaliya ka soo haray war caruur yar yar waa nin oday warkiisa ma nin culimaana warkiisa ma kaaga darana quraanki kariimka wuxuu ku soo haray kaliyeeta waraaq uu ku qoran yahay qoraal basoo meel iska yaala war quraanki ma intaas ka soo haray war quraanki soo lama xifdiyo oo soo lama barto oo soo ma akhrino soo in badan kaga ma dhaqano ya ma meeshu iska yaala bis walba inta soo qaadanaan akhrisanaa oo aynu baranaa tafsiirkiisaan dhageysanaa oo aan intaas muxuu ahaa aan wadanaa quraankii far meel qoran ku qoran bas ha ka soo hadhay warkaas war xaqiiqada ka fog waa saas daraadeed baa waxaan leeyahay taqriiban waxaad moodaa dadkani inayna la noolaynba mujtamacaadka muslimka malaha xiddi kale ka yimaadeen dayaxay ku noolaayeen meel kale ku nooliyeen wax la yaab la waa islaamkii inta ayagu ay tabayaan oo la muhiimsan inta hadii ay meesha ka baxsan tahay islaamka oo dhan wada maqan islaamka iyo diinta islaamka iyo ahkaamteeda iyo badankeed waa joogtaa muslimiintuna waa haystaan laakiin wax maqan baa jira oo loo baahan yahay in la baadigo warka saxda ka isaga kaaga darane waxa kamida warka aan isagana xaqiiqada aad uga fog oo meesha ku qoran waxay leeyihiin bashariyada aadamaha bashariyada waxay leeyihiin waaqi'u alladhi ya'ishu albashariyatu al-yawm huwa waaqi'un muhaddin li din Allah منذ أن ولت وجهها بعيدا عن عقيدة الإسلام وشرائعه وأحكامه مستبدلة مناهج البشر وشرائعهم وأحكامهم حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف أو أنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه عليه بني آدم كورن كلا قال الآن سكدر إله الشرع يسي أحكام تيسي waxay u haystaan in ilaahay laga qaato ahkaamta waxay u qaateen inuu yahay qaadashadiisa in la qaato shay lagu dib dhacayo takhalluf shay dib dhac bikeenay tayib inuu dhaxal taariikhiye xilligii la doorana la isaga tagi karayo bal ayba xaq tahay in la isaga tago dadkii baa sida rumaysan beelay bashariyadii aadamihii kulligii wuxuu rumaysan yahay ahkaamta ilaahay hadii la qaato in la dib dhacayo oo laga harayo aadamaha laga dib dhacayo laga harayo tayib masaasan rumaysanna wargaal baa rumaysa warka muslim mar rumaysna ahkaamta ilaahay hadii la dabaqo oo ilaahay ahkaamta laga qaato waa lagu dib dhacaya muslim mar rumaysna gaal baa rumaysan oo waliba aan idlayn waa mid labaade إلهي أحكامتي سول الرقم قليو وأرين تاريخية ويحقتها إن لقتها إن لقتها واجب وحق ما مسلم باقبا ما يعني مركا وحوي تقريبا ودد واقع كم مقرأ أفرتن كسنة إليهن شيء يعني إليهن أفرتن سنة أنه عالم كأنه فيرينين أو أنه محوء هاي أن مراقبينين واحد مدة أفرتن كما إني كم مقرأ أيام مش وحكم ده انت هدان kaga baxo qodobka isaga ah oo uu imaado jawharka iyo xaqiiqada bayaanku xambaarsan yahay waxa ugu daran ee ugu khatarsan ee bayaanku xambaarsan yahay waxa weeyaan in ay rumaysan yihiin in adduunka waxa maanta joogay ay gaalo wada yihiin dadka tukada kuwa masaajida ku jira kuwa shahaadanaya kuwa kale gaalada asliga ah wax muslima inuu san dhulka joogin ayaga marka laga reebay rumaysan waa masaladii aan soo sheegnay usuushii aan xalay soo sharxayn inay qabaan oo takfiir yihiin bayaankooda laftiisa ku taala aynu dhowr qodob soo qaadano waxa kamid ah mesela hadallada ku yimid bayaanka labaad waliba wuxuu واقع البشرية اليوم ومن خلال هذا الفهم الواضح لمعنى الشهادة الذي غاب عن الناس نرى أن البشرية بجملتها في حاجة إلى أن يعرض عليها الإسلام من جديد حتى في هذه الرقعة التي يطلق عليها العالم الإسلامي
وحتى هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين وفي رصد يعني واقع واحد شراء آدمها ما أنت تشوفه مركن فهم كاس وفهم كود شهادة معناها فهم كا مدلول كذا وضدك أنتي سبضن كم مقن ضدك كم مقن ما أنتي سبضن ما كاس وضدك كم مقن كامر كان فيرين وحان أرجنا عن اعتقاد سنة هيوه آدمها ضدوب كيس إنه ما أنت أبا هي إن إسلام كلو بندقه صب لوجو بندقه إسلام كإن صب لوجو بندقه حتى دولالك لوجو شيء إن عالم الإسلامي يهين معها حتى عالم الإسلامي معها وما قورة إنه يلاهدو عالم الإسلامي ما قورة لكن وحليه حتى دولالك لوجو مجعابه عالم الإسلامي لوجو مجعابه السجو ما قورة إنه لوجو مجعابه صوت معيته يعني إنه قالين بالروميسين طيب وحيدي وحتى كوا نفتوضا روميسان نفتوضا كسو قاضي حتى إني مسلمين كسو قاضي إسوها يستيني مسلمين حتى كوا إسوها يستيني مسلمين وحي أباهيهين إن إسلام لماذا الله بندقه سعصب لوغو بندقه لأن الدين ما يستان معنى واسدا مع ماشا كم مقدمر بشريادو إني قاليهين عالم كان عالم الإسلام اللي يلاهدنا إنه عالم الكفر إنه بلادنا إنه تهي بلاد الكفر إنه ضد كان إسلام لماذا الشيغان ينفتض واحد يستيني مسلميهن إنه يسان المسلمين هنا وقاليهن طيب مركل واقع هذا الكلام بالله ماذا الواقع الذي يعيشه البشرية اليوم هو واقع محاد لدين الله واقع عالم بشرية ما أنت كن نوشه ومد قرب مرسن إله الدين كيس منذ أن ولت وجهها بعيدا عن عقيدة الإسلام وشرائعه وأحكامه إلى لقصوا بالله بمركي وجهي ذا كدودي وجهي ذا كل حسي ميل كفق أقول حسي عقيدة الإسلام كميل كفق هي شرائع دي أحكام تيسا مستبدلة أيضا كبدلتي مناهج البشر وشرائعهم وأحكامهم يعني مناهجتي هي شرعية دي أحكامتي بني آدم كدتشي مركي كبدلتي وحوي حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف وأنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه وقتي هذا نخرينينه مركا محمشة كم مغضى واقع بشرية يدون لك الربين مانتا إلهي دريقي سي يدين كيسي ويقرب مرسنت بيانك سدح قضوا إسلام حوها بيانك وحكوسا أوروري اللباد هذا الكلام كوسا أوروري وحي إن القائمين بالحكم في كل بلاد العالم كوا ما أنت حكمك هيا تحلك هيا عالمك والدمدي صورنا بما في ذلك البلاد التي تسمى بالعالم الإسلامي كدر بيلو هكرري والدمد اللغو مغعاب عالم الإسلامي كدر هكرري لغو مغعاب طيب كوا إيجا والدمد كتلية يغتصبون سلطان الله إلهي أودي سيبي الدعين ويبوبين وينصبون أنفسهم آلهة من دونه نفتوضنا وحي استاتيين إني إلهيين ألك السكو بل ويتجاوزون ذلك إلى محاربة واستئصال كل من يدعو إلى إخراج الناس من العبودية وردهم إلى العبودية لله وحده عيد كستو خلق اسكود إذا إني دتك كسرت أدونسجي أدونسنا يعبديان إيجا عيد كستو اسكود إذا إني كسرت خلقه إلهي عبادتي سيصارتنا ويلد قال لما يانا وعربت ريان وحيد مرك هذا كان أفير صدا والشعوب تتابع ذلك راضية كوا إلهي حكمك سدعي مدحدا شعوب تأي مجتمعات كنا أرنكاس يكون رعسنتها يدور رالي كؤه وتصفق له بحماس بالغ وإن أصعب بنا يسا شعوبتي يدور أسي أن حد لهي حماسيسا marka shucuubtiina waxay ku gaalowday inay raali ku yihiin ilaahay xukunkiisii oo la dhacay madaxdiina waxay ku gaaloobeen ilaahay xukunkiisii bay dhaceen oo boobeen oo ilaahay iska dhigeen shucuubtiina raali bay uga noqotay wayna u sacbisay labadiiba isla gaaloobay marka طيب
hadalka saddexaad waxa weeyaan oo isagana ku imaanaya meeshaas oo kaba siixad wuxuu yidhi laqad istadara az-zamanu ka hay'atihi yawma jaa hada ad-din ila al-bashariyati bila ilaha illa Allah wartaddat shu'ub al-alam kullaha ila al-jahiliyyah التي جاء الإسلام ليخرجها منها وحيدي عالمك أو دن شعوبتيس مجتمعاتك أدونك كن نولو دن دينتي إسلامك وكان نقدين وحي نقدين قال لمدي جاهلية دي دينتي إسلامك هذا كور أي كسرتي بيديب أقول نقدين شعوبت عالمك دن بدون استثناء ويكن نقدين إسلامك جاهلية دي قال لمدي دينته هري وقصو صارت بيديب أقول لابتين مركز وحليه ولم يبقى من الإسلام اليوم في واقع الحياة إلا اسم ولا من القرآن الرسم هذا الكيورين صومرنا وقاليسين عد صوما مركلت هذا الكنا كقر هذه الشهادة التي غاب عن الناس معناها وإن ضل فريق منهم يرددها دون أن يدرك حقيقتها ودون أن يعي معناها وهو يرددها فأصبح واقع الناس يناقض حقيقة الشهادة ومدلولها ومقتضاها شهادتين كهلي ضدك وكم قنتها معنى هذه ضدك وكم قي حتى قار ضدك كم ذبا ها العليين وعربك هكو العليين ما أنت هذا دونتن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كوهيا لكن وإذا كم قنت يقول معنيه فاهمين حتى هبع العليين وعربك هكو العليين dadka waaqicoodii noloshoodu maanta waxay noqotay mid si toos ah u burinaysa uga hor imaanaysa shahaadada xaqiiqada shahaadada iyo macnaheeda iyo waxay keenayso kulli waxa soo dhan wuxuu ku tusaya marka hadalladaasi waxay ku cad yihiin inay jamaacadu tahay jamaacad takfiir ah oo warkoodu cad yahay oo rumaysan waxaan iyaga ahayn inay gaala yihiin بلاد المسلمين تنا إننا بلاد إسلام أهين أي بلاد الكفر تا هذا سجمع عو هذا مجتمعات ككون الله إن الدين تكرر دودو كبحذي صوتنا أي تهي أحكام تا وضع جاء أي رال كل نقطة وحتى سيحديني مركضوا في رستان بيانك مركو حوجا وضبا وذاتكو ضدكو الله الله مركز وحوليه هي كلمات استعماله يا أيها الناس يا أيها العالم البشرية وردضوا ورعالموا بشرية دي آدموا ما مقليس مرنا أسوق ضحية يا أيها المسلمون يا أهل الإيمان أيها الإخوة في الله صوت معيته صوت إذا ما بروا يسلم صوما أيها المسلمون يا أيها الإخوة في الله يا أيها أهل الإيمان إيوه وحقها ننرم يسنين ذاتك المسلمين صوما مركز خطابك وكترجمة يا معتقد كهذا عن شرحني أو إننا الرميسنين ذاتك المسلمين صوما وحاسب مفارقة عجيبة مركز دقيستان ترجمة الصومالية وذاتك آخرنا أسوي حليه هاي ولا ليال حقا مركو وضب ولا ليال مركا روح يصير وكان عسين يا هضوب خطابك أصلك بيانك أصلك يا أيها الناس يا أيها العالم كقرين كان صومالي ولا ليال حقا كيف مركا الرسالة دي وكان عسين يقابك وحس عدين أيوه كان عسين يا ولا ليال ماشي كم تشرتيه وردضوا ضضوا لأنه ولا ليال بمعنى إنه إناد مسلم تايب وكوي اعتقاد معناها أنا ماشي كمية طيب أرنت اسمك وحكم وقتا هذا كان صومرني حكامة مسلمين تقول لك جالسيو بدون تفصيل وأنا أرين أنصح سنين تفصيل بمسألة كتيرة مجتمعات كمسلم كالله جالسيو ولو جالسيو رالي وحيكويهين أحكام تاس أن إلهي تيسا وافق سنين مذهب كاسنا ومذهب كي خوارجتي هوري جماعة التكفير والهجرة فكر كوديوان مسألة كلا استلتاق أبضان وحيته شعوب مسلم كو إن الرالي كوتا هاي وحيالها السعودية إن إلهي دين تيسي وحانا هاي لغو حكومي شرعي سي وحانا هاي
inay raalli ku tahay oo ay sabab uga dhigeen inay ku gaalaysiiyaan arrintaasina waa arrin u baahan daliil u baahan shucuubtu raalli kuma aha imisa ayaa arrinkaa isaga ah ka dagaalamaysa imisaa diidan imisaa dalbaysa in shareecada ilaahay lagu xukumo imisaa xabsiyada ugu jirta imisaa meel walba la taagan imisaa dalbaysa raalli bay ka yihiin xageed ka keentay maadaa qalbigooda jeexay ya quluwigii khawaarijta waxaa isweydiin leh oo iyadana waqfo kale oo arrintaa isweydiin karnaa ayaga iyo ummaddaasi la dhawaaqaysa maxay ku kala duwan yihiin horay baanu usoo tilmaannay bal in badan kaga fiican masaa-isha iyo taqriirintooda iyo ummadda in loogu yeedho ayib arrinta kalena waynu soo marnay oo ah haddii ay mas'aladu tahay axkaamtii ilaahay mid aan ahayn baa idinku dul socota oo laydinku xukumaya jawaabtu waxa weeye idinkaba waa laydinku xukumaya idinkaba iyadii baa idinku dul socotee maxaa annagana gaala idinka naga dhigay idinkana muslimiin idinka dhigay su'aal isweydiin law ayib inta haddaan kaga baxno mas'alada muctaqadka rasmiga ah ee asaadicuuna bilxaqi inuu yahay muctaqadkii takfiirka muctaqadkii khawaarijta inuu yahay intaa markaynu kaga baxno waxaynu u gudbaynaa tawxiidkan ay dadka ku gaalaysiiyeen ee ay leeyihiin ummadaba waa ka maqan yahay macnihiina lama fahmin iyagu ma fahansan yihiin waa ya xaqiiqadu waxay tahay iyagaan tawxiidka fahansanayn ayagaan shahaadada macnaa laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo madluulkeeda saxda ma ay fahansanay macno kooban oo macaaniday keenaysa ka mida ayay ku gaabsadeen macaanidii ka muhiimsanayd oo shahaadateynku keenayeenna way ka tageen wadaliilu calaa dalika waxa waa mafaahiimta maqluudkaa bay ka mid tahay macnaha tawxiidka waxay ku fasireen markaad bayaanka si fiican u akhrido waxay ku fasireen xukumka iyo sharciga lagu dhaqmayo iyo sharci dejinta iyo nidaamka nolosha kala wada ilaahay keliya iska leh waxna wax loo yaqaan tawxiidul xukmiga loo yaqaan ama xaakimiyay qaarkood ahaan qaybtaasay tawxiidkii keliya ka dhigeen macaanidiisana halkaas ku fasireen marmarka qaarkood bay calaamadad si rafaad ah bay waxoogaa shacaa'irta tacabudiga iyo waxba yara gelinayaan laakiin macnaha ay tawxiidka iyo shahaadada u yaqaanaan ee ay bayaankooda ku fasirayaan waa xaakimiyada sharci dejinta ilaahay baa iska leh nidaamka addoommada maamulaya ilaahay keliya iska leh isaga in looga dambeeyo weeye intaa weeye tawxiidka ay fahansan yihiin ama ay ummadda ku gaalaysiinayaan inuu sidaa yahay waxaa ku tusaya bayaanka waxaa ku soo arooray hadalka shahaadateynka markuu fasiraya wuxuu yidhi ama shahaadada wuxuu isweydiiyey maa hiya xaqiiqatu shahaadati wa mafhuumu tawxiid tawxiidka fahamkiisa saxda iyo shahaadada xaqiiqadeedu maxay tahay buu isweydiiyey markaasuu wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah tacni laa ilaaha ila allah inaad qirto waxay ka dhigan tahay oy la macno tahay an laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye inta hadday u dayn lahaayeen macno ballaadhan bay qaadan lahayd laakiin maxay dhaheen walaa sulطaana walaa xukma walaa tashriica ila lilahi subxaanahu markiiba waxay aadeen mar walbana waa saas mar kastoo ay fasirayaan dhanka waxay aadayaan uun xukumka iyo tashriicay aadayaan ya xaggii garsoorka iyo axkaamtii lagu dhaqmeeyey iyo dowladdii iyo siyaasaddii dhankaa unbay aadayaan oo laa ilaaha ila allahu macnaheedu ma intaasa laa ilaaha ila allah iyo shahaadada iyo tawxiidku ma intaasa mise macno kaluu leeyahay ayib tafsiirkaasi tafsiir saxsan maaha marmarka qaarkood baad arkaysaa isagoo xaakimiyada iyo sultaanka iyo ku daray iyo cibaadada iyo nusuga marmarka qaarkood shacaa'ir dacwadiyay ku yara darayaan mar waay calaamadad laakiin bayaanka masaladu xoogga saaraya dadkana ku gaalaysiinayaan kelimatu tawxiidna ay ku fasirayaan shahaadada waa xaakimiyada waa xaakimiyada ayib masalada xaakimiyada markaynu u noqono tawxiidka iyo shahaadada macnaheeda rasmiga markaan u noqono intaynaan fasirin meeshuu ka khaldan yahayna aynaan tilmaamin
waxa laga maarmana inaynu sheegno khilaaf kuma jiro muwaxidiinta agtooda dadka muslimiinta ahlu tawxiidka iskuma khilaafsana mas'alada ah inuu ilaahay keligii xaq u leeyahay jidaynta iyo tashriica xaq allah khaalisan cidda sharci dejisa wa xalaalaysa wa xaraamaysa andimada dejisa xaq u leh ilaahay keligii khasaa'isu rabbi bi kamid ilaahay ba khaas u leh tabaaraka wa ta'ala qur'aan kana masalada tilmaamay sunnada nabiguna waa sheegtay sallallahu alayhi wasallam wala yushriku fi hukmihi ahada ha qiraa'ada kale waxay ahayd wala tushrik fi hukmihi ahada ilaahay xukumkiisa cidna hala wadaajin ala lahu al-khalqu wal amru abuurka isaga leh amarkana isaga leh amarka kawniga iyo amarka tashriiciga labadaba isaga iskale inil hukmu illa lillah in xukumka ilaahay keligii leeyahay tashriicana keligii leeyahay mas'alada ku jira ma mas'aladaasi inxiraafka galana shirkigu galay am lahum shurakaa'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah mas'aladaasi waa mas'ala mafruuqa oo muxuu ahay aan hadal ku jirin inay xaq ilaahay oo khaalis tahay in adoomada nidaamka maamulaya sharciga maamulaya dastuurka maamulaya qawaaniinta maamulaya andimada kala hagaysa inay ilaahay khaas u leeyahay arintaasi hadal kuma jiro طيب لكن توحيدك كليجد ما أستاذ درادي بقى وحيري العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله أضواء البيان جلد كالتضبات صفحة بقول لحدين لا وحوليه الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهم البتة إلهي حكم كيسي يشرع كيسي يتشريعي إن اللو ذا سعيد كلام إيه إن العبادة سعيد كلام لو ذا تسو واسكم معناه فرقنا ما لقوله فالذي يتبع نظاما غير نظام الله والتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله سومالي يعني وحوي إن إلهي أحكام تلصيه شرعي سنة لقدم به وامد إن لعابده ويسقى الله خضوعه لا وضب إلهي بخاص له مسألة لا سمركة ومسألة ساسة هبا كالضودين علماء قاركودي حكمكم موحو قليا ما التوحيد كألوهية قليا وقيبة عبادة قليا مثل الربوبية قليا ضد سجر حاكمك حكومة يا إلهي الشرعي سوحان أهين حكم كيس تفصيل باكوتشير مرنا عاصب النقضاء مرنا واكو قالوا به مرنا عاصب وكل نقضاء مرنا واكو قالوا به ميتك الشرعي إلهي الشرعي أهين وتحاكمة ينا تفصيل باكوتشير مرنا واكو قالوا به مرنا قالوا ما قارسيسنا سألوا مرة هذه سيدة استهاي ما أها إن كدود إنه مسألة حاكمية لكن وحن ديدنا هاي محكمة مسألة حاكمية إن غلوي حد جذب لغوصمي أو ماشي هذه ميلانا هاي لقيه سيدا خوارج تبع مسألة الإيمان أي حد جذب لغوصمي قدريتنا مسألة القدر وأصوش التوحيد ككم ده أي حد جذب كلغوصمي حاكمية أنت تكلي جد قبضته إن الحد هذا قافز والدين تيرنا يدا كذبت وهذا يدو مقنته إسلام كي ومقيه ويدا هدي لقيت محوها هاي أمل لواء إسلام كي لواء وعدي كتكت الدين تكوض بحضي غلوي النوع عاسي مسحسن هذا مركز سيدا كوفة سيرين توحيد كي الشهادة دي سيدا كوفة سيرين معناها سي معنى الصحابة سيدا قرآن كتوصي سنة النبي قلنا كتوصي صلى الله عليه وسلم عبادته حق معناها ويكجد وينتهي حكمك دلالة دون ويكحل دارت طيب مفهوم قاصر ومركز وحا وقفي عن قيحيد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أوفي رسالة مركو عبادة قيحة يمحوي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة عبادة هدي الليلة عبادة إلهي إن أمري اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صوما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة سوى مقع كل من وحكستو إلهي تعليه الرالي نكيه أما هذا اللغو الله هالنقض أما عمل السمائية وحبنه السمائيان هالنقض ميد موقضة يميد قرصون أما قلبي قوحي اعتقادية هالنقض شيء كستو إلهي تعليه الرالي نكيه وعباده
markaasuu miisaaliye waxaa soo gelaya buu yidhi salaadii waa cibaado sakadii waa cibaado soonkii waa cibaado xajkii waa cibaado runtu waa cibaado inaad run sheegto ammaanada inaad gudato waa cibaado labada waalid inaad baari u noqoto waa cibaado raximkaaga iyo qaraabadaada inaad xidhiidhiso waa cibaado ballanta inaad ilaaliso waa cibaado inaad dadka khayrka farto xumaantana ka reebto waa cibaado jidka ilaahay oo lala jihaado lagu jihaado oo kuwa mudan lala jihaado munaafiqiinta iyo gaalada waa muxuu ahay waa cibaado dariska oo ixsaan loo sameeyo waa cibaado agoonka iyo miskiinka iyo ibnu sabiilka iyo addoommada la leeyahay iyo xataa xoolaha iyo waxaan hadlinay noolaha kale oo ixsaan loo sameeyo waa cibaado soomaarta wuxuu yidhi والدعاء والذكر والقراءة إيوه إلهي إن أضبريده الله بري بسوء عباده ما إن إلهي حسطه عباده إن القرآن كأخرده عباده إيوه وحي الله مده صوما عباده مركه وقدوينت عبادتي وحا سوق لي وكذلك حب الله ورسوله إن إلهي تعالته وعباده رسولك سينات تعالته وعباده خشية الله والإنابة إليه إن إلهي كبقضه استقع الله بطه وعباده إخلاص الدين له إن الدين تأجوني شوض إن لو ناتني الصبر لحكمه إن الحكم كيس كصبر توا عباده نعمة سينات كشكر توا عباده إن القضيه سرال لكل نقطة توا عباده إن تلصارته أتكوكل صوناته يعني وعباده إن النحريستي سر جيس وعباده عذاب كيس إن كبق توا عباده وحصل العبادة يسوق ليه صومار عبادته مركب معناها جود بيلاد أيقولوا محيك الدجال يا وروح هيك كده هل قيب بيكدغ هل كقيب امدي كحكمان ايغنا التوحيد كي اوقاتهم ساس ترادد انتاسي هداي مقنتahay اسلامكي waa maqan yahay halkaas ka socota war intii kala dhan baan wada haynaa intaasi haday maqantahay maxaa diinta nooga saartay oo islaamku u gaalaysiinaysa fahamka marka ay tawxiidka iyo shahaadateynka ka haystaan iyo cibaadada waa faham maqluut ah waa faham khaldan sidaas daraadeed waliba waxa mudan markii cibaadada noocyaheeda ka diisan markay isu tagaan kee ugu muhiimsan marka la yiraahdo ducada ugu muhiimsan bariyada sooma saas daraadeed baa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam الدعاء هو العبادة بريو عبادة أو دان مركي أورطة بريادة يسوق إيمانيس هذا عيد عن أول لهين هذا بريدة قبري بريدة وذات دنتي بريدة مخلوق أو حسن هنين كرين بريدة شينك بريدة يا سو قال لي ماما سو توحيد كميل ما ذاك قدر وقومت شير قرشها يجوا حاس طيب كذلك مفهومك خلدن قاصرك او توحيدكي يا معنيه اصلكي عبادته ان انت اون لغو فسرو انه كمهم سنانا لغا ليخيو وفهمك التزامين او توحيدكي دينته كفهمين امدنا اي ku xukumeen saas daraadeed waxaan leenahay arintaasi waa qaldan iyaga laftooda fahamkii tawxiidka iyo shahaadateynku ka khaldan yahay طيب bal waxa ajiib ah dadka ugu yeedhaya ummadda ilaahay keligii barya ilaahay keligii tala saarta qubuurtana caabudina bid'a ka taga alla ciidana ha baryina ha tala saaranina ha kaalmaysanina qaybtaaba muhiimka ha u gowricina ya keligii ciidana ahayn ciidana isaga ha u sujuudina qaybtaasi dadka faraya xarakaadka jamaacaadka iyo culimada ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay yihiin dad ku mashquulsan waxyaalo juz'i ah waxyaalo yar yar bay ku mashquulsan yihiin tawxiidkiina waa ka maqan yahay wada tawxiidka sheegay muxuu yahay waa inta iyagu fahansanayeen tawxiidka fahmeen طيب markaynu fahanno kadib cibaadada fahamkeedii waxa kamida meelahay ka qaldameen qaladka kale oo isla fahamkii cibaadada iyo tawxiidka iyo shahaadada khaladka labaad ee ka galeen waxa weeye hadalkooda waxa kamid ahaa markay uu keenay aayadda quraanka ee ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayuu wuxuu wal ibadatu laha ma'na wahid ibadatu hal ma'na leedahay hal ma'na bas muxuu yahay wa huwa الخضوع المطلق والاستسلام الكامل لسلطان الرب الجليل
inaad u khuduucdo u dulowdo isu dulayso adigoon waxba ka soo reebin si dhammaystirnana ugu hoggaansanto allah sultaankiisa iyo awooddiisa iyo sharcigiisa ayib kaasuu ku fasiray markaasaa wuxuu sii wa aayatu dalika alla yaltafitu fi sha'ni xayaatihim kullihi amran walaa nahyan ila min allahi alwaaxid alaxad mas'aladii iyagu markii hore baan soo sharxno soo sheegnay bay marka la aaday macnaha maxaa ka khaldan cibaadadu waa khuduuc mutlaq ah khuduuca waxaa la yidhaahdaa inaad isu dulayso ayaa khuduuca la yidhaahdaa cibaado macnay leedahay halka macnay leedahayna waa khuduuc buuri ma saxsana tafsiirkaasi isaguna waa qalad lianna cibaadadu laba macnoo isu saaran waayo waa khuduuc wa tadallul maca almaxabba jacayl alla aad jeceshahay iyo isdullayn aad isu dullaynayso labadaasoo isa saaran baa cibaado ah ee khuduuc keliya cibaado maaha saas daraaddeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قط وطئة الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له لما معنى وضعتها إلى ماشى أقدم بيس إن إلهي تشعلاته ماشى أقدم بيس إن إلهي سدليس هذين الله وضع معنى كل من عبادة وما بركاسو سي مثالية وحي روحي مثلا إنسان أخضع سقو النعب يا ونعبتها الروح لكن وحوقا والشحات ما تكررتها وهذا سير الدليس يوضع خضوع ذي سوء حوقا كوسي أما وضير خضوع ذي سياد ليب كيسا وقال نبضكش قلبي قنوات كان نعبتها مياد عابد يا ماذا عابد ميد بات على مخلوق لكن أموس خضوع مثلا عروت هذه بات علاتي حاسكاقي بات علاتي وما سي خضوع ما عبادة ما هي قول ما عبادة نقول مركي كولان سطه يا الخضوع والمحبة مركز عبادة نقونيسا ونقونيسا حق ربي تبارك وتعالى مالك لو كل يا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع لبضا وإن العبادة السجوي مادام أيونا ما حيكون فسيرنا العبادة يا الخضوع المطلق وأين المحبة قيبتي لبضا وقومت جبت قطر ما يفهم سنة مركب يا هذاني نحن التوحيد كي عبادتي ما ينام فهمي بقلدرنا يا هذي مرنا حاكمية حكم كلية كفصيران مرنا أي خضوع كلية عبادة كفصيران هذا هو تعريف يفسر قاصر أول معنيه قيب كم يدوي أنتي تبنانا ومقيم طيب تانا ومرة سيداس دراد يتبوحا لنا توحيد كان هي شهادة أد مدلول كذا إذن كفهنتين ومدنا أد كوجاليسين إنسان إذن كأباهن إن ليدن برو أيها أباهن إن لبرو أشهد أن لا إله إلا الله معناه يدم حوية هاي يا توحيد معنيه سمحوية هاي أيها أباهن من جديد إن يبرتان ما هاي ندد كوجاليسين فهم قلدنا يجو قاتين أو جزء مقاصرة إن ندد كوجاليسين إسلاتا وحا كدشي فهمك قاصرك توحيدك عبادته أي كفهمين إيه شهادته وحا كدشي طاقوت كينا إني معنى قاصرة أسمية إلهي سومرهن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي كليجي عابدة طاغوت كان كفوقادا طيب طاغوت كي بيهدنا تفسير كي قاصر كأهن صومر نبي مريم طاغوت محلينا وفي صدى تعريف كود وحيدا هو كل من تبعه الناس وأطاعوه بغير إذن من الله عيد كستو ولا راعه
ودتك أطيعان يسقون الله أؤذن وطاغوت هي الطاغوت هو الذي ينحي شرع الله ويشرع للناس طاغوت هو ميتك إله شرعي سينتو ماشا كدركي وماشا كسار أسقوا دتك أتشدية شرعي قوانين أتشدية هي الطاغوت هو الذي يحل للناس ما حرم الله ويحرم على الناس ما أحل الله وإيش القدر في هرم والتكرار سمارة وحول الطاغوت هو الذي ينازع الله في سلطانه وذاتك إلهي أودي سكوها يستع فيضع الدساتير ويقرر القيم ويضع الموازين والعادات والتقاليد والأخلاق وأنك ذاتك رقك أوديكية سلام يشي وانا يا marka daaqood maxay ku fasireen laba qodob ninka dadka shuruuc iyo qawaaniintii ilaahay aan ahayn u dajiye ka ilaahayna meesha ka saara dadka wax u xalaaleeya ka xarima ki ilaahay aan ahayn waa daaqood dadku inay iska raacsan yihiin iyadoo idan ilaahay u salhaysan waa daaqood tayib su'aal baa isweydiin midka ay caabudayaan sanamka ay sujuudayaan qabriga ay caabudayaan geedka ay caabudayaan daaqood maaha jinka ay wax u gowracayaan daaqood maaha macna maxaad fahamtay daaqoodkii mar labaad waxay la aadeen tafsiirkiisa meeshii tawxiidka ay ku fasireen ilaan daaqoodku wuxuu ka soo horjeedaa allaha xaqa leh caabuda marka la yidhi midka cibaadadiisa laga tegayo dhan baa daaqoodoo maxaa tahay marka ayagu markay la aadeen xalaalayn iyo xaaraameyn keliya iyo itibaac iyo taaca keliya la aadeen macnahaasi mar labaad waa macno qaasir mar saddexaad baan dhihi macno sax ma sida saxda wax weeyaan ayadoo tacriifkoodu iska yahay tacriif saxsan oo sanahayn ayaa hadana daaqoodka sida saxda wax weey waa sida Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ayaa wuxuu leeyahay والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة مركز وحده والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي وجدد وحوى فالمعبود من الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت متك لك السكة ولا عابدي حدوسا كهنين عبادة الله ولهاي إسق الله سينا حدوسا كهنين وطاغوت صوما midka loo sujuudayo midka la baryayo midka kaalmada la weydiisanayo midka gargaarka la weydiisanayo midka la tala saaranayo midka loo gowracayo ee raaliga ku ah waa taaquut hatta yuusan sharci jidaynin ya waa taaquut hatta dhagax ba ha noqdo geed ba ha noqdo waa taaquut laana dawaaqida waxa ugu weyn shaydaan ba u weyn sooma odayga dawaaqida waa shaydaan waa ibliis wuxuu yiri marka walihada samma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-asnama tawaaqita sidaas daraadeed uu nabigu asnaamtii geedihi iyo dhagaxyaanta ay caabudayeen nabigu wuxuu ku magacaabay tawaaqid tay su'aal isweydiiyo marka nabigu wuxuu yiri wayattabi'u man ya'budu at-tawaaqita tawaaqita marka la tago aakhiro ninkii daaqud caabudi jiray daaqudku caabudi jiray raaci doona markuu ilaahay amar bixi su'aal isweydiiyo marka sanamiyadu ma waxbay xalaaleyn jireen ya ma sharci bay dejin jireen طيب ما إذن انتي أمر ضدك السيام با أمر كودا لا أديع جري ما حيث رواقيت كن نقدين يا ولا عابد جري أيوة مركز عبادة قيب تاسي عدة للسيو باقود كما ينادي وسيو ذا وحر والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت نينك إلهي معصيدي سلقوا أطيع يا إلهي كتابك سخلاف أمرك إلهي ميت خلاف سلقوا أطيع حاكمك حكم إلهي كأنا هين ذاتك أمر يلقوا أطيع والطواغيت طيب ابن القيم بسوق قابيه يسوق حوري والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع عد كستو أضامد حدكيسي أي قدبيان وطلابيان أو مثل عابدية أما مثل الرعسية هي أما مثل أطيعية وطاغوت وسي تفسيرية
sidaas daraaddeed daaquudku tafsiirka ay bixiyeen ee daaquudka ku fasireen isaguna waa tafsiir qaasir ah waa tafsiir juz'i ah qayb dawaaqiidii ka mid ay ku fasireen laakiin qaybo kale oo fara badan bay meesha ka saareen mar labaad ba waxaan leenahay tawxiidkiina mayna sixin tafsiirkiisa cibaadadiina macnihiisa mayna sixin daaquudka tafsiirkiisa iyo macnihiisa mayna sixin intaasina waxay tilmaamaysaa in ay aqoon darro fara badan hayso marka macnaha saxda ee daaquudku waa ka meesha iyagu la aadeen waa meeshay kaga dhagan tahay masaladu Soomaalida waxay yiraahdaan hebel meel maag buu leeyahay nimagaas meel maag bay yeeshay hal meel bay kaga dhigtay halka meel ay kaga dhigtayna waa qodobka aan tilmaanayo xukunka iyo qawaaniinta iyo sharciga qaybihiisa siyaasadda iyo dawladda iyo garsoorka intaasi kaga dhigtay diintii waa in muhiim ah soo tilmaanay laakiin diinta islaamku inta kaliya ma aha ina kaleeto oo kuwa ka sii muhiimsan baa ku jira daaquudka tafsiirkeeda markay bixiyeenna iyadana tafsiir qaldan bay saareen oo qaasir ah oo aan dhamaystirnayn tayib inta waxa inooga soo baxay in qaadiga dadka xukumaya ee intaasoo malaayiinta muslimiinta bal milyaar iyo ka badan muslimiin oo maanta dhul korkiisa ku nool ninka xukumaya ee qaadiga ee garsooraha ee ahkaamta saaraya waxa uu ku xukumayo ma yaqaan soo dhiiranaana caadi ahayn ma milyaar iyo ka badan muslim oo koonka maanta ku nool oo sujuudaya oo cibaadaysanaya oo masaajida camiraya oo quraanka akhrinaya oo tawxiidsanaya oo dadka tawxiidka alla ugu yeedhaya oo u xidhan oo lagu dilayo oo u rafaadsan marka diinta ka saarto aqoontaada tawxiidka iyo cilmigii aad kaga saaraysanaya halka gaarsiisan tahay soo geesi nacasamati waa jiri waa nin indha adayg uu dilayo waa indha adayg uu dilayo tayib masaa'ishan oo kaleeto waxay tilmaamayaan cabsidu markay yaraato ruuxa tadayunku ku yaryahay markii diin ruuxa tadayunku ku yaryahay ayuu masaa'isha noocan oo kala ajiiraa ruuxa la ka cabsiga leh ilaahay ka baqay diintiisu culus tahay masaa'ishan gaalaysiinta khaasatan ummada inta la eg inuu diinta ka saarayo mas'ala la fudud ma ilaahay agtiisana kuma fududa tabaaraka wa taala tayib waxa ka muuqda bayaanka waxyaalaha la yaab kale ka mid taskiyatu nafsi waxa la yiraahdo ayaga fahamkooda qaldan ee qaasirka iyo waliba ijtihaadkooda tanziilka laba arrimood baa isa saaran nusuustiina waxay fahmeen faham qaasir ah inta mayna ku gaabsanine tanziil bay sameeyeen oo ummadii bay ku dabaqeen oo ay ku tanziiliyeen oo masalada tahqiiqul manaadka la yiraahdo masalada tanziilka bihaddi daatiha ba ijtihaadiyata fahamkoodii oo qaldan ummadii ay ku xukumeen oo ku tatbiiqiyeen oo ijtihaad oo qaldan ayagoo inta isla wata ayay haddana meeshay isla joogaan iyo say isu amaanayaan iyo say isu taskiinayaan Allah yaabaysa waa dhaqankii khawaarijta lagu yaqaan iyo ururadan takfiirka ayaga fahamkooda iyo siday diinta u haystaan kaliya jira ayagoo maana saxsan ayagoo qaldan macdalik u fiirsada hadallada macnaha qudusaya waxa kamid wuxuu leeyahay wa hatta yara an-nasu fiina salamata as-sadri wa nasa'ata al-haqqi wa khulus an-niyyati ma'a al-israr 'ala suluki at-tariq ila Allah duna dha'fin aw hawan aw taraddud dadku inay naga arkaan qasadkanagu inuu fayow yahay xaq cadna aan ku socono niyadanaduna khaalis tahay oo idinka sheegtay yaa idin qiraw sooma wuxuu leeyahay laqad cishna wasatakum dhaxdiinaanu ku noolaanay zamanan muddaanu idin dhex joognay haddaanu nahay jamaacadii as-saadiquuna bil haqq muddaanu shucuubtiya idin dhex joognay ayuha an-nas منذ أن أقمنا هذه الجماعة لقبل الله مالك كان جماعة أساسني إلى ما أنت مدير بان إذن دح جوجني
هاي فاسألوا عنا كل ما يعرفنا روح كستونا يقانا ويدي حالكنا ويا إذن يقانا إذنكم بس يقانا سؤال بقى ومدي هذا ما يكون براروكتي يا لو يدين هرت هذا ما بقى فهمي بقى ضد يربع فانسنا ضد كنا يقانا ويدي بده طيب هذا ويديننا فلن تجدوا إلا كل خير وصدق ومحبة مركز حال كنا ورستان وحاولني صبيح بالخير ودن يا نوغا سوكين بيح إن خير ودن هينو رون ودن إني أنا نقول إيش محبة يكالقعين إنه نقول إيديها إيدين صباحيس فهذا ما تعلمناه من إسلامنا تاسنا ووحان إسلام لماذا نتكبر وهذا ما نقتدي به من أخلاق نبينا نبي قلنا أخلاق يسيبنا كقضينا طيب مراها سؤال الوحيد هذا نينس أماني ها والرئيس نكت مراها إن لو يلاه في عنا إن لو قرها في عنا لكن أنا أقول قرهاته وأجزاء سواء ما أنتو خير ودنيا محبية بنكون نحكي ولا قف يعني حتى هدات تسكية ده وحكم إذا يقاب كي السلوك ميهين يهير كي إسلت شوجا آياته ضدك أيجا خلاف سن كسور كذا ورك كودي مذهب كودي منهج كودا أنقر سنين جاهلية ويقانا مكذبين ويقانا الرسول شكوي بينيي أو كلام صوما لأن شعار كودا بحكي بالله بين شعار كودا محكي بالله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل كإريبان إذن لن نمد إلهي كلي عابدا عدكلو عبادة للمجرتين اعبدوا الله ما لكم رسوش سيولا تمدوا طيب عدي إذن كهري مادنا كي رسوش بينيه ولا مدي ما هذيك فهم كاي قلدن نكي حتى كهري ماد رسول بكوري من نكاس سلو ساسو وحد كوكرا آية هندقيست وحيلين أيها الناس استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض آيات كاس طيب آيات كاسي وحير انتو سنة آخرين وحير فإن أنتم استجبتم لدعوة الله نلتم بمشيئة الله سعادة الدنيا ونعيم الآخرة وإن أبيتم فنصبر على دعوتنا حتى يفصل الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاصلين وراي ديتي سأجيبه ورقوك هنجي يوم وإنتان إلهي أمر كيسو إذن كوي مال المال أنا وحي لي لهين ميلادو عرتان أينن هيلين أنت قوم كنجي يوم دا إلهي كوي سوي يلا محوها هاي الرمية ويدين دم دافي أشر وين بويدين سين عذاب بويدين كبد بادي عدي يلي ويدا صوما إلهي معاجز قيلين كرتو كما فكان كرتد إلهي يا واي وحي ساوها الله ورسا يا وهلا رسوش شيبا ساو هذا الشيء أيوة مركم حيس كرد جيان بوس كوديو كلا إسديجان مركزا وحي كودره روحي يليتان كنجا يلي واي أو يلي دا أنو يرنيله روحي يلا أو باقا قاتا إلهي ليبان تيسو قاري أدونك إيا النعيم كي وربرواقضا آخر هدا ديدان صوماها دعوة الندان نكو صبرينا إلى إلهي إنك لحكمه وإنك لسارو حق إنك لسارو بمعنى سيدي أمضاها يقوم كود اللوكا لساري تشيرون لها لاقي تشيري ملاها أمضا إلا هلاقي الرمى دي والذي كوري ما دولي وإن واقل دي أمضا ما هماريزا هدي ليس كلاسارو ما إن هودي إنه وحلوك لساري فهم كينا قلدنا وحلوك لساري ما إسعجبين تهير كاقار سيسن ووحاقو إناد كرلك تصيد يعني فهم كي الرسوش عدة كاهر تمادنا عد رسول كاهر تماد وكلا أدولا نقنتو خطاب كنوع عاسكوه جهداي وتزكية النفس خوارج تلقوا يقانيوه خوارج تي فرق تكفيرك أيها وحا كدحية أما كو ددك الله يا هنقدين أما كو اسكا مخوا ددك اسكا دحجيرا هنقدين هل قضب كدحية وحا كميدا إن إسعجبيان وفهم كودي iyo manhaj koodu cajabiyo ki ilaahay oo kalena ka soo qaada warma faham kaagu iyo ka alla uu kala duwanaan kara quraankiisi khaldan ma nusuusti baad u fahmi kartaa tanziilkaaga iyo tatbiiqaaga qaldanaan kara waa kala duwan ayaa may
nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sii tilmaamo wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu ka hadlahayay khawaarijta sayakuunu fii ummati ikhtilaafun wa furqa wasayajii'u qowmun yucjibuunakum watucjibuhum anfusuhum yaa ummaddayda khilaaf iyo kala jab baa geli doona waxaana imaan doona qowm iyaguna iscajabiya idinkana idin cajabiya sayay iyagu isu cajabinaya fahamkoodii iyo dhaqankoodii iyo cibaadadooday u bogeeno waa isu riyaaqeen iyagun baa is afuufaya idinkana seebay idiin cajabinayaan waxay idiin cajabinayaan sheegashadooda iyo cibaadaadkooda iyo markaad fiiriso waa kii nabigula sal alay wasalam soonkooda iyo soonkiina markaad fiirisaan kiinaad xaqiraysa qur-aan akhriskooda iyo kiinaad xaqiraysa qoladii sidaa la yidhi baaba dhaantayba niman cibaado badan oo masaajidda ku jira oo cibaadaysta oo soom badan oo madaxu qallafay intanaa qolof ka fuushay ya gacmaha qolofi ka fuushay say u tukanayeen oo lowyahoo dhan baa wada qolofoobay say u tukanayeen war kuwaasi cibaadayba lahaayeene kuwan xataa masaajid iyo cibaadaadkii wixii ma jiraan ma tukadaan ma lihi laakiin cibaadadii kuwaa ma laha wamaca dalika fikirku waa fikirkii qoladaas marka iscajabintaasi waxaa lagu yaqaanaa firaqdan manhajkii khawaarijta maray ama ciddii kale oo manhajka saxda sunnada ku suganay fahamkiisa mar walba wuxuu rumaysan yahay fahamkani anaa fahmay waa saan u qaatay saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa haddii ijtihaadi yahay xukumkan aan dadka saarayo aniga unbaa fahmay laakiin saxna waa noqon karaa qaladna waa noqon karaa ciddii iga hor timaadana hada daliil iyo burhaan bay u baahan tahay inuu iga saxsan yahay dhici karay soo ma laakiin waxa weeye rasuulna anigu mowqifkiisii ma matalayo meeshiisii ma joogo dadka iga soo horjeedana dadkii rususha beeniyey booskoodii ma joogaan soo ma xukumku waa kala duwan u fiirsada nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu la hadlayay ragga ciidamada hogaamiye ee umarada ah ee dagaalada aadaya markuu nabigu la hadlayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri tayib وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أمير نبي كسعودة عيدا كيف هو قامني قالوا الله دقال الله نبي وحكوي له هداد دد ميل رفيس كتيرا أما ميل دقن آد هريرها كمرتود muxuu ahaay aad hareerayso oo intay isu ka dhiibaan ay yiraahdaan xukumka ilaahay nagu xukun waa amiirkii ciidanka muslimiinta wata gaala isu dhiibta xukumka ilaahay uu qabeen naga qabo nagu xukun haday ku dhahaan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha ku dajinin ilaahay xukumkiisa hadhihin ilaahay xukumkiisii baan idin saaraya laakiin maxaa dhahdaa waxaa dhahdaa xukumkaygaan idin saaraya xukumkaaga adigu ku deji ka ilaahay ku dejin sababtu maxay tahay ma ogid xukumka ilaahay ku deji xukumkaad ku dejinayso inuu kii ilaahay yahay iyo fahamkaagii oo qaldamay inuu yahay ma kala garanayside xukumka alle hadhihina kaygii dheh war ma fahanteen macnahaas ya waa nin amiiroo saxaabi ahoo nebi maxamed dirsaday oo ciidan hogaaminaya waxaa lagu leeyahay dadka markaad xukunka saarayso waxaad tidhaahdaa waa aniga say ila tahay xukumkaygii weeye sidaasaynu ku heshiinay saasaa laydinku xukumay laakiin ilaahay baa saa idinku xukumay adhih ilaahay baa saa idinku xukumay u fiirsada firaqdani fahamkani waxay waa kii rasuulka ayib fahamkani iyo qaabkani dadkan yaa gaalaysiiyey ilaahay baa gaalaysiiyey dhihi iyo ku leeyahay war muslimiinta yaa xukumay oo gaala inay yihiin qur-aanka xukumay nebi maxamed baa xukumay dadkan inay gaala yihiin war adaa fahamkaaga qaldan ku xukumay xukumkana dadka adaa saaray ilaahayna ma saaray nebiguusuna ma saaray ka daayo fahamkani waa qaldami karaa inaad asiibto iyo inaad khaldanto labadaba suurtagal waay sidaas daraaddeed ilaahay ha u tiirinin sharciga ilaahayna ha saarin ka daa nebi maxamed baa ina baraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayagana waxoodu waa wixii oo boqolkiiba boqol ayib intaa kadib waan gabagabaynaynaa intaa ka badan buu u baahan yahay in la dul istaago laakiin labada xalqo inay iga dheeraato kuma talagelin wax badan nuqaad fara badanna waa laaban yahay intaasi laakiin waxaan rajaynayaa inay kifaayo tahay oo ay ku filan tahay nimanka iyo manhajkooda
iyo dariiqooda iyo taariikhdooda iyo waxay rumaysan yihiin in la caddeeyo waxaan leenahay marka khitaamka iyo gabagabada waxaan leenahay ayaga waxaan leenahay dad faham badan fahamkii diinta wax badan oo kamida uu ka maqan yahay way ka toobad keenaan leenahay fikirkan khawaarijta ee takfiirka ah waa fikir lagu rogmaday hortiin baa lagu baaba'ay ka toobad keen ilaahay u soo noqo annagana xaq waxay noogu leeyihiin inaan ilaahay u barino inuu soo hanuuniyo oo balaayadan iyo aafadan iyo manaahijtan qariban inuu ilaahay ka soo hanuuniyo intaasi waa iyaga ummadda muslimka ana waxaan uga digaynaa afkaarta noocaas oo kale afkaartaas waa afkaartii nebi maxamed ka digay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa afkaartii nebi maxamed ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka xambaarsani in ay yihiin dhulka korkiisa inta ku nool kuwa ugu shar badan waa afkaartii khawaarijta ee nebi maxamed ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhulka korkiisa wax lagu laayo inay iyagu ugu shar badan yihiin inay naarta inta gelaysa eydooda yihiin haddii uu nebi maxamed soo gaari lahaa haddaan gaadho waqtigay soo bixi doonaanna sida caad loo baabi'iyey baan u baabi'in buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkana wuxuu tilmaamay inay ugu khayr badan yihiin dadka kuwaa la dagaalama dabcan markay xoogaystaan oo bannaanka u baxaan afkaartii noocaa ahayd ee nebi maxamed saa uga digay axaadiista mutawaatirka ah afkaartii noocaa ahaa weeye afkaartani laydinku qarinee la leeyahay alsaadicuuna bilxaqi hoosteeda ku jirta marka ha rogmanina khaasatan da'yarta oo maanta aafada haysataay ay noqotay cid kastoo qaylida inay iska dabayaacaan ayagoon garanayni waxay yihiin soo ma ogidin aakhiru zamaanka sida nebigu sheegay sal alla lay wasalam shaytaan intuu mara bini aadan kuu soo gashado oo hebelkii aad taqaanay isu soo ekaysiiyo oo uu kula fadhiistoo kuu warramo inaad ka tegin inuu kaa tegi oo markii lagu yidhahdo waryaa kula joogo war ninkii hebel ahaayoon aqaanayoo nin magaciisan laakiin suuraddi ninkii hebel ahaa baa ila fadhiyo intaa ii sheegay war shayaatiin baa ka soo baxaya muxuu ahaayey warbaahintan iyo barahan la isugu yimaada iyo nin kastoo ka soo baxiyo koox kastoo ka soo baxdaba haddaad dabayacdaan maalinta dambe shaydaankiiyo sidiisa u mutaxan baa isa soo taagi ya oo mara sheekh soo gashada sidaas daraaddeed waxaan la daba yaacayo ha la iska xaqiijiyo qodob kale qabsadoo afkaarta noocaasa taariikhiyan marka dib loo raaco waa madhalays afkaarta khawaarijta iyo takfiirku waa madhalays ummadda shar mooye khayr kuma soo kordhiyaan bal taariikhda dib u raaco maalinkii saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam ay gaalo kusii jeedeen oo la dagaalamayeen saxaabadii bay laayeen saxaabadii intay gaalaysiiyeen bay laayeen ummadda muslimka inay laayaan oo gaalaysiiyaan oo dhiigooda bannaystaan mooye khayr kaloy taariikhda ummadda ku soo kordhiyeen lama hayo su-aal baad isweydiin kartaan si fudud su-aashu waxay tahay 40 sane wadaadadina ay leeyihiin xarakadani waan qarsoonay oo caalamkan indhaynayno kor baan ka fiirinayno ya 40 sano maxay qabteen bal isweydiiye aw masaajidka dhiseen aw agoontay u gargaareen ya aw jaamacadaha dhiseen aw gabdhaha xijaabeen aw diintay faafiyeen dhowr wadaadoo 40 sano kadib intay isa soo taageen 40 sanaano adduunka kor ka fiirinayno oo kor markaad ka fiirinaysa maxaa qabanaysa waa fikir caqiim awal fikir caqiim ma dhalaysa waa wax ma keeno waxna ma kordhiyo laakiin ahkaambu meesha la fadhiya waa gaal diinta laga baxay halkan intaas la fadhiya marka natiijo ma keeno markuu inta ka sii kordhana saan idin sheegay cidda uu ku wajahay uu laynayo dhiigeeda daadinayo dalku burburinayo waa muslimka meel fog aadi maayo marka afkaarta noocaas natiijo ma leh waliba waxa aad iyo aad isweydiin u leh tawqiidka iyo waqtiga hadda xarakadan la ilaamiyay iyo meesha laga ilaamiyayba shaki badan bay abuuri kartaa xagee laga ilaamiyay
يا ومصر مرحلة يا وقتك هذا مصر يكون جرتو معيت ururadii iyo xarakaadkii ay gaaladii u yaqaaneen qunyar socodka kuwii baa hilfaa loo laabaya oo sujuunta ka buuxo qaxay waa kuwii qunyar socodka loo yaqaan ee u yaqaaneen gaalada iyo wixii la socdo war kuwii sida ahaa marka heerka la marinayo mid rumaysan dawladdan inay gaalata oo shacabkani gaalaya yaa intuu qaahire ka istaagay buu warkii cilmaansaday قالاتهين أيها الناس ندعوكم بدعوة واحدة ومقولة واحدة اعبدوا الله ما لكم من الله غيره حقيوي وقاهرة ومصر مرحلة دي هذا مريزان وقتي سو شكي وين ما أبوري كرتو ولي بوحدو تام ورورضا نوعا أو كلاء قالوا سيئو استعمالا ويقانا سيدا دلنيرada loogu lugooyana waa la yaqaanaa sida loo tajniidiyo oo loo isticmaalo dadkeeda loo shaqaaleystona waa la yaqaanaa war la yaqaano in badan oo kamid oo dhalinyarada hadda dab ku daadinaysana waa barnaamij mukhtalaq oo la abuuray korkana shaati ka xidhan islaamkii baan soo celinaynaa diinta islaamka hal la raadiyo in il hukmu illa lillah wa shaatiga la xidhay hoostana maxaa ku jira abeesooyin baa ka buux abeesooyinka inay doon cunin qaar far badan baa baabaaye نميها الرجمانين تردارن كيجو وحويان مرحلة أدق بالمرة يا روح مسلم كان أبى هي تلاوة وقاضي ينو بقول قر كفير صن هذا كفير صن ويدو لا تلومن إلا نفسك هل قضبت كوبد بعد إنسان بإذن الله تبارك وتعالى علمك الشرعي قبرت علم هذا نكون حبنا هذا تردارن كيجو قدام مين تاو وأركيسان وحلوميي دت كانت أركيسان وويل يرو جاهلوا صوما ويل يرو دوري لما تنشرع وحدنا أقوى شرعية عن الله صومينا صوما التاريخ ممكن نقال لي أقوى شرعية عن الله دوري لما تنشرع وخبرات ملك وهي أرقني من ملك أقوى شرعية عن ملك كلية زراعية وحكبة محوها وحبرنا يولي بمجد أنتوا صن كذا دم كبرت نين كاسا فكر كتكفير كي هجرة نين بالوريي بسليي أركب نين كاس ولله بارد كل داريه ما وحاس واحد دين لقى دين كرا وحاس دين لقى دين كرا هلوجو هنا خطرنا هيسجليننا جهلي وشيء وجوه الرئيس سببته وأي حماس كوضع الصعدة لجوية النوع عنو كلا ساس درادد وحبرتا والدين تبرتا وفريستا وأقوني يشا وأصوشي أولابتا وكتابك إيا قرآنك إيا الصحابة دي إيا السلف كي يفهم كودي أولابتا هل كاسوي بدبادد وماشي كتشرته علماء كو حدنا حتى هذا الأقون لهين علماء أمضوا إليه هاي اللي يقانوا الله كعفسك إيا أقون تلقوا يقانوا كوا كبد حقاي مرين واد بدبادي حتى هذا الأقون تهدي لهين نيكا أقون تلقابسو ابن القيم عليه رحمة الله وكو جبجبيو ضدك صدح بو كدي انت انا ندين كسو جبجبيني صدح بو كدي وحو يري ني وانين ان دلهو انديهيسا ku soco nina waanin aan in dalahayn laakiin u shaloo hayo nina waanin aan in dalahayn laakiin iska hagabsanay ninka indhaha leh indhihiisa ku socdo waa caalimka diinta yaqaana waa ninka aan indhaha lahayn in dhoolka ah ee u shaloo hayana waa ninkaan aqoonta lahayn laakiin nin caalim adaba socda labadaas way badbaadayaan ninka aan in dhoolka ah ee iska hagabsanaya iska qasbanayana waa jaahilka asagu doonayo inuu jidka iska maro mid afraad oo ka daran baa jira yuuya waa mid in dhala oo mid sidiisoo kala usha u dhiibtay haddaad indhala-aan tahay laakiin aad adigu iska hagabsanayso taxadarkaagaad qaadan soo waad indhalada is ilaali baad dhihi moogta adaa isku tashan laakiin haddaad indhala'daho mid adigoo kala usha u dhiibatay soo haadaarun kaa tuurmay taxadarkiina xataa waad lumin sidaas daraaddeed dadkan aqoon la'aanta dadka iska daba dhigtay waa indhool uu indhool hagayo وانا أفرت حالة مدة أقول warka gabagabadiisu waxa weeye Allah ila suuqo
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك